kacaanku wuxuu meelmariyey mashruucii libinta ahaa ee ololaha hirgelinta Farsoomaaliga iyo horumarinta reer miyiga kumanaan isugu jira macallimiin arday ayaa loo diray barin kasto udub aqal Soomaaliyeed ka mudan yahay waxaana bulshada loogu baaqay haddaad taqaan bar haddaadan aqoonna baro horay uma dhicin miyi magaalo sidaani oo kale xiriir wanaagsan yeeshay raadiyaha qaranka ayaa laga baahiyey waxtarka qorista farta ay u leedahay horumarka dalka iyo bulshadaba kacaanku wuxuu xoogga saaray la dagaalanka jahliga akhriska iyo qoraal la'aanta waxaa xoogga la saaray sidii qof waliba uu Soomaali ah u baran lahaa afkiisa hooyo meel kasta uu qofka Soomaaliga joogay waxaa gaaray ololihii xitaa haddii uu ariraac yahay beeraley iyo kaluumaysataba si loo baro afkooda hooyo mashruuca ololaha waxaa barbar socday mashruuc kale oo dadka lagu barayay fayadhowrka dhanka caafimaadka horay tilaabo nuucaani ah dhulka Soomaalida laguma samayn waxay noqotay markii ugu horeysay ee dad Soomaaliyeed ay meel isugu yimaadaan iyagoo aanan u tartamayn si qabyaalad ku dhisan laakiin juhdi ugu jiray sidii ay qarankooda iyo afkooda horumar u gaarsiin lahaayeen mid yar iyo qof weynba wuxuu diiradda saaray siduu u baran lahaa afkiisa hooyo iyo sida barwaaqo loogu horseedi lahaa dalka iyo dadkaba dhaqaatiirta iyo macallimiinta oo wada socda ayaa gaaray meel waliba oo qof Soomaali ah lagu sheegay iyo si waliba oo dadkaasi loo gaari karay gaadiid ahaanba kacaankii ololihiisii waxbaridda reer miyiga wuxuu noqday mid guulaystay wejigii hore ololaha 6 bilood ee ugu horeysayba madaxdii dalka iyo shacbiga magaalada waxay u istaageen soo dhaweyntii macallimiintii ardaydii ka soo noqotay ololahaasi kuwaasi oo kaalin aad u fircoon ka qaatay mashruucaasi kacaanku wuxuu sidaasi oo kale dhiirigelin xagga aqoonta u sameeyey dhalinta da'da yar ee Britain noqon lahaa hoggaanka dalka dhalintaasi oo soo bandhigay dabaaldegyo kala duwan oo si farshaxaysan loo soo agaasimay madaxweynihii dalka Maxamed Siyaad ayaa xilligaasi ka soo qayb galay dabaaldegaasi isagoo halkaasi ku guddoonsiiyay ardaydii bilado iyo hadiyado kala duwan kuwaasi oo ku mutaystay hadiyadahaasi muddadii sanadka kala barkii halgankii adkaa ay soo galeen intii ololaha uu socday Soomaalidu waxay xilligaasi hiigsatay midnimo dhan waliba ka dhameystiran ardayda iyo macallimiintooda dhaqaatiirta beeraleyda injineerada iyo ciidamada qalabka sidaba waxay muujiyeen inay u midaysan yihiin qarankooda iminka waxay dhalinta da'da yar soo bandhigayaan mehrajaan lagu muujinayo waxtarka beeraha waxaa halka dambe ka soo muuqda muuqaal loo ekeysiyay calanka qaranka uu leeyahay sidaasi oo kale waxay ardaydani soo bandhigayaan yoolkooda waxbarasho ee mustaqbalka
sidaan la soconno kacaanka ka hor soomaalida waxay wax ku baran jireen afaf qalaad laakiin waxay maanta fursad u heleen ilaa iyo dugsiyada sare inay afkooda hooye wax ku bartaan iyada oo dawladda qaabaysay manaahij xiliyeysan kuna salaysan duruus tayo leh waxay maanta ardaydaasi afkooda ku bartaan taariikhda dalkooda sidaasi oo kale waxay dawladda xilligaasi xoogga saartay kaalinta haweenka ay ka qaadan karaan nolosha guryahooda iyaga oo loo tababaray sida raashinka loo kariyo sidaasi oo kale waxaa haweenka la barayay xirfado ay ku shaqaysan karaan dawlad waliba oo aanan lahayn jaamacad qaranka uu leeyahay waxaa soo food saartaa dhibaato xagga xirfad la'aanta dadka si dhibaatadaasi loogu gudbaana waa in xal la helaa kacaanku wuxuu aasaasay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyadoo xilligaasi ka koobneyd kuliyado 15 gaaraya waxaa jaamacaddaasi ka qalin jibiyay arday badan oo maanta hogaaminta dalka diyaar u ah sanadkii 1973 dalka wuxuu galay halgan kale waxaa soo rogmanayay bacaadkii fadhiya aagga Shalembood kacaanka wuxuu markiiba go'aansaday in bacaadkaasi laga hortago si uusan u duugin dhulbeereedka una soo gelin magaalada waxaa markiiba loo baahday gurmad aan loo kala harin oo xaaladda wax loogu qabanayo dawladda waxay markiiba u xil saartay khubaro ku xeel dheer hawshaasi isbuuc gudihii waxaa la dareemay awoodda qarannimada ay leedahay shaqaalaha dawladda iyo beeralayda oo ka kala yimid magaalada iyo tuulooyinka ayaa si iskaa wax u qabso ah hawshii bacaad celinta ugu qayb qaatay waxaa markiiba halkii bacaadka lagu beeray geedo iyo tiin si ay ugu hortagaan in bacaadka uu ku soo rogmado dhanka magaalada shacabka oo wada shaqaynaya waxay keentay in bacaadka meel lagu soo wada hubsado dawladda waxaa hawsha bacaad celinta ka kaalmeynaya midowgii Sofiyeetka bacaad celintaasi waxay dawladda ku qarash garaysay malaayiin dollar laakiin wax qabadkii ay dawladda kaga hortagtay bacaad celintaasi waa mid meesha ka soo muuqatay isbeddel ahaan bacaadkii waa uu hakaday laakiin dawladda haddana dhanka kale ayaa laga soo imtixaanay markaan dadka reer miyiga ayaa dhibaato ku habsatay gobollada waqooyi galbeed sida Togdheer Nugaal mudug iyo galguduud waxaa ku habsaday abaar loo bixiyay abaartii dabadheer xoolihii reer guuraaga iyo dadkaba waxay u la'aanayeen si daran waxaa markiiba la dalbay gurmad degdeg ah oo dhibaatada loogu gurmanayo waxaa waajib noqotay in la badbaadiyo dadka abaartu ku ceertoobay oo shacabka iyo dawladda ay u gurmadaan dalkana waxaa soo gaaray macaawino dalal kale laga keenay goobihii ay abaartu ku habsatay waxaa si kumeel gaar ah loogu sameeyey xerooyin dadka lagu siinayo raashin biyo dhar iyo daawoba madaxweynihii dalka Maxamed Siyaad ayaa markiiba soo booqday gobolladii ay abaartu ku dhufteen si uu u qiimeeyo saameynta ay abaartu ku yeelatay bulshada wuxuu markiiba soo booqday dadka ay abaartu waxyeelaysay kacaanku wuxuu deeq iyo taakuleen ka helay xilligaasi midowgii Soofiyeed
wuxuuna ku guulaystay in dadkaasi gurmad degdeg ah loo fidiyo isla markaana la dejiyo deegaanada u dhexeeya labada webi ee ku habboon tacabka beeraha iyo meelo kale oo ku yaalla xeebaha badweynta Hindiya iyagana ku wanaagsan kalluumaysiga. Soomaaliya waxay leedahay laba webi oo lagu kala magacaabo Jubba iyo Shabeelle kuwaasi oo qayb ka ah waraabinta beeraha waana halkaan meesha reer miyiga loo qorsheeyay in la dejiyo. in dadku abaartu ceertaysa goobahaasi laga raro ma ahan wax sahlan 120,000 oo qof oo iskood isku xilqaamay ayaa qayb ka ah soo raridda dadkaasi loo rarayo goobihii loo cayimay in dib loo dejiyo. beeraleyda mustaqbalka waxaa loo asteeyey Kunturwaare, Sablaale iyo Dajuuma halka kalluumaystadana loo qorsheeyey Baraawe, Eyl iyo Cadalle. waxay ahayd shaqo aad u culus oo dhib badan sidii dad reer baadiye ah looga dhigi lahaa beeraley iyo kalluumaysato. sidaas darteed 18 Julaay sanadkii 1973 dawladda waxay bilowday in dadka ay u soo rarto goobihii loo qorsheeyay in la dejiyo halka dib u dejinta dadkaasi ay ka qayb qaadanayeen gawaari gaaraysa 600 oo kuwa xamuulka ah. gawaaridii xamuulka way isdaba kaceen iyagoo u jeehaystay dhanka koonfurta. maalmo yar kadib gawaaridii ugu horeysay waxay soo gaareen Kunturwaare iyadoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen dadka deegaanka Kunturwaare nolosha cusub ee u bilaabanaysa dadka reer miyiga. waxaa dadkii loo dhisay teendhooyin kumeel gaar ah inta nolosha halkaasi ay kala qabsanayaan halkii kuwii reer miyiga ahaa ee soo rarta dhistooda ayagana ay dhulka dib ugu mudanayaan aqal Soomaaligoodii. reer miyigii loo qorsheeyay inay kalluumaysato noqdaan waxa iyagana loo jiheeyay dhanka xeebaha. maalmo yar kadib gawaaridii xamuulka oo jidka ku soo jiray maalmo badan waxay aakhirkii soo gaareen goobihii loo cayimay. dadkii ugu horeeyay waxaa lagu dejiyay Cadalle waxayna dadkii reer miyiga ee qaxootiga ahaa loo soo dhaweeyay si aad u heer sareysa. waxaa loo dhaqaaqay in dadka reer miyiga la baro sida badda loo galo isla markaana loo dabaasho halka badankood dadkaasi aysan weligooda arag badda middaasi oo dhibaato kale ku ahayd dawladda. reer miyigii beeraleyda laga dhigayay waxaa loo tababaray iyagana sida beeraha loo abuuro. Kunturwaare iyo Dajuuma waxaa laga diyaariyay dhul gaaraya 18,000 oo hektar si dadkaasi ay wax ugu soo saartaan noloshooda. kalluumaysatada waxaa la barayay noocyada kala duwan ee kalluunka badaha Soomaaliya laga helo halka beeraleydana la barayay noocyada dalagga iyo dhirta guud ahaanba. reer miyigii kalluumaysatada loo tababaray waxaa qasab noqotay marka hore bariga lagu tababaro sida shabaqa loogu tuuro badda maxaa yeelay waxa aad u adkaatay kalsoonida ay ku qabaan badda galisteeda. muddo 3 isbuuc kadib reer miyigii kalluumaysatada loo tababaray waxay u dhaqaaqeen inay soo kalluumaystaan maanta. dhanka kale beeraleydiina waxay duugayaan dalagii ay doonayeen inay abuurtaan waana shaqo ka adag midda kalluumaysatada. kalluumaysatadii howlgalkoodii ugu horeeyay waa ay ku guulaysteen waxayna ogaadeen qiimaha kalluumaysiga iyo nimcada badda Soomaaliya ceegaagta.
beeralaydiina iyagana dhankooda waa ay guulaysteen oo waxaa u soo baxay dalagii ay abuurteen. Soomaaliya waxay ku tilaabsatay horumar dhaqan dhaqaale oo dhan kasta saameeyay. Waxay noqotay dal sharaf iyo karaamo ka leh dunida oo dhan, gaar ahaan qaaradda Afrika. Haybadii Soomaaliya adduunka ku yeelatay darteed bishii Juun 1974 waxaa xamar lagu qabtay shirkii OAU-da, waxaana guddoomiye sanadeed loo doortay madaxweynihii Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre. xilligii uu Siyaad Barre hayay xilka guddoominimada ururkaasi wuxuu si hufan ugu soo dhalaalay xilkii, waxaana sanadkaasi la hirgeliyay halkudhigii ahaa Afrika hurdada ka toos oo isu tasho. Afrika hurdoy cadow ku heriye hurdoy haliyad ade hurdoy hadbaun aye hurdoy ahoy Afrika hurdoy cadow ku heriye hurdoy